السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يار كسر دواد برنامج جار وعن كويجا نو شركة نمدينتها شلي كده عيد دجان كآدم وال أو قياستي 20 كيلومتر لين عوقوي كحجة دجمة حررن كقبل كعين شركة سوق يسوي مادين لبدا بلد كسر كلا شيدا برجع برع يبيش الدكتور بوهول شركة عشان وحوها شر نمديد waxaana dood dheer oo yeesheen labada beelood oo lagu ansixinay qaabkii labada beelood u gaari lahaayeen halkaas lagu dhaareeyay min koob iyo 10 oday ka soo kala jeeda labada beelood oo tiraan gaaraysa 22 oday waxaan u dhacday dhaartii qaabkani waynaku billaahi waynaku tallaahi ilaahu marxaadka umada in la kala badbaadiyo islaamka ilaaha baa kala badbaadinay ku daadanaysa maxay tahay dab ku daadanaysa in nabadgelyada daacad ka tihiin oo nin waliba wuxuu awood u leeyahay daaqadiisa oo nabad kaga shaqeynayo oo aan wax qiyaama iyo xasha ka galay bayinku wallahi ba bayinku billahi ba bayinku tallaahi ba ilaahu marxaadka bayinku wallahi ba bayinku billahi ba bayinku tallaahi ba ilaahu marxaadka allah intaas kadib waxa halkaas laga akhriyay go'aamadii ka soo baxay shirka nabadeynta ee beelaha bariga burco iyo beesha degta Buuhoodle waxaana saxaafadda u akhriyay Sheekh Umar Soodani oo kamid ah cilmiga Buuhoodle dhinac kow gabagabada shirka waxaa la isla qaatay kow nabadgelyo la isla qaatay laba xabad joojin iyo ciidamada la kala qaado saddex muddada shirka la isla maaragtay muddo shirka la qabanayo oo la isla qaatay oo dhan 22 maalmood ka bacdi 22 cisho ka bacdi afar goobta ama meesha lagu qabanayo shirka ma cid qabanaysa waxaa la siiyay walaalaha beesha habar jecelo iyada ayaa muddada sheegi doonta goobta lagu qaban doono laakiin shirka iyo maartay martigelinta iyaga ayaa la siiyay labo afar shan weeye waxaa la dhaariyay 22 oday oo ka kala tirsan labada beelood beeshiiba 12 oday ayaa laga dhaariyay in arrimaha iyaga ay daacad ka yihiin oo sidaa ay u ballan qaadeen lagu dhaariyay 6 baaq nabadeed oo la isla qaatay oo labada beelood ay soo wada jeedinayaan sida soo socota 7 ciddii jabisa ballanka muddada loo qaatay ee nabadda ku saabsan ee la isu dhaarsaday in dhinac looga soo wada jeeso lafta ama jibsinta ama qoyska dhibku ka yimid u gaar ku ahaado ay isla qaateen labada beelood kale waxa iyana halkaasi markii go'aamadaas lagu dhawaaqay ka hadlay isimada labada dhinac waxa codbaahiyaha ku horeeyay isimada iyo salaadiinta beesha bariga burco waxaana halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha bariga burco suldaan Cabdullaahi suldaan Cali waxaana uu sheegay nabadan ay ka beelahan soo dhaweynayaan waxaana isna halkaasi ka hadlay boqor Maxamuud Axmed Cali suldaan Maxamuud Guuleed iyo waliba salaadiinta beesha bariga burco iyo hadalka isaga dambeeyay dabeedna halkaas baanu isugu nimi dabadeedna waxaan ka wada hadalay dhibaatooyinkii reeraha dhaxyiil dabadeedna waa ka heshiinay reerihii oo dhanbi waa ka heshiiyeen dhibaatadii dabeedna waxaa la gartay in la isugu yimaado 22 casho oo dabadeedna halkaa la wada fadhiisto oo lagu xisaabtamo beelaha wixii ku kala jiray nabadgelyadana la xaqiijiyo oo ciidamada la kala qaado oo kormeer lagu sameeyo beelaha anigu intaasun baan ku soo gaabinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ubadkaagaba way u tahay qof walba ka qayb qaadaan leeyahay nabadaasaa la qaatay nabaday baan leeyahay walba oo karaamo leh ee halkan jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale salaantaas mid lamida baan hawada u marinayaa dadka ehelka iyaga ah ee na dhageysan doona waxaan halkan aan u aragtaan mikrofoonka in lagu yaacayo waxaas wixii meesha looga baahanaa mar hore ayaa la yidhi waa farxad lagu faraxsan yahay nabadda la xidhay maanta bislaynteedii waxyaabihii raadkii hore hadhay dhammaystirkoodana waxaa loo ballamay sida laydiin sheegay 22 casho kadib meesha markaa lagu qaban doonana annaga ayaa soo cayimi doona waxaan u sheegaynaa dadka yaga ehelka yaga hadday dhulbahantan yihiin iyo hadday habar jeclan yihiin
gaar ahaan anagu reerka aanu odayada u siinahay habar jeclo in nabad la gaadhay nabad la qaatay nabadda nin walba laga doonayo isaguna inuu qaato oo uu ku shaqeeyo wixii inoo dhimanna fadhiga dambe iyo golaha weyn ayaa markaa lagu dhammaystiri doonaa ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa camal khayra baynu u guntannay ilaahay wayna la qabtay intiisii hore ilaahay inuu inoo dhammaystiro isimada beesha buuhoodle ayaa iyana halkaasi ka hadlay waxaana hadalka ku horeeyay garaa cabdirasaaq garaasoofe waxaana ku xigay garaa salabaan buraale aadan suldaan saciid ismaan cali dhammaantoodna waxay soo dhaweeyeen heshiiska nabadeynta ay maanta la qaateen ardayga beesha bariga burco waxayna ku tilmaameen inuu yahay heshiis taariikhi ah shaqaaqooyinkii aad maqlayseen baanu ka wada hadalnay waxaan ku heshiinay sidaa laydin sheegay in xabadda la joojiyo oo xabaddan baan la isku ridin insha allahu tacaala waxaanu ku heshiinay in ciidamada la kala qaado oo nin waliba gurigoodii u aado waxaanu ku heshiinay qofkii maanta laga bilaabo wax dila hawl isaga gaar u ah inay tahay labadaa beelood midna garab aanay ku siinaynin isaga ayaa laga rabaa isaga ayaa maaragtay arrintaasi ay gaar u tahay waa inuu sidaa ogaadaa dadkani dad islaama oo derisa oo walaala'a weeye dad kala go'ayana maaha haddii horay loo wada socon jiray oo xabadda maaragtay in la wada rido loogu wada socon jiray maanta waa laga heshiiyey arrintaa nabad baa la isla qaatay dadka iyaga meelay joogaanba aan odayga u nahay beesha dhulbahante meel kastoo aad joogto waxaanu leenahay qoriga xabadda ka saar walaalaha waa heshiinay xabadda qoriga ka saar naqaagaa daaq biyahaagaa cab nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey isticmaal oo ka faa'iidayso sidaasaanu idiin soo qaadnay qoladan kale walaalaha ana sidaasaanu ka filaynaa idinkuna qoriga xabadda ka saara naqaynaa iyo nicmadiinna daaqa saasaan leenahay intaa kadib waxaan ku heshiin inaan wada hadallo oo nabadda salka loo dhigo oo wixii la kala tabanaya laga wada hadlo oo nabad siyaasad ka madax bannaan oo annagu madaxweyneyaal aanu nahay oo wasiirra cuqaashu u tahay oo nin garboodku meelihii kale iyo kaalmahoodii u yihiin inaannu ka wada hadallo oo madax bannaan oo tii geedka lagu qaban jiraya saasaannu idinkula ballamaynaa nabaddaa qaata iyadaa dan idinku jirtaa iyadaa maslaxadii idinku jirtaa inaad isdishaan oo aad qaxdaan oo habeenkii geed hoostii gashaan wax maslaxadii idinkuma jirno saasaynu isku ognahay warsow sidaa iskuma ogin saasaynu isku ognahay insha allah waa nabad waa la isdaayey waa nabad waa la isdaayey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحدة waxaa galabta aad iyo aad farxad u ah ragga kaloo muddo dheer kala maqnaa dhibaatooyinka ka socda maanta geeska afrikaba ay keentay inay muddo dheer iska kala maqnaadaan dhibaatooyinna ku dhex jiraan subaxan saaka intaa halka kale isugu timid ee waraagga u timid ee doonaysa dadkooda iyo xoolahooda dhibaataysan iyo xabadda khallidhacaysa ee dhallinyarada ku dhacaysa inta saaka u timid waa ilaahay baanu u baryaynaa inuu khayr siiyo intii kale ee ku taawacsan ee arrintaa taawacsanna waxaanu leenahay khayr allaha siiyo intii wax kale kaga jiraan ee hadallo kale ku hadlaysa ama meelaha ka xaytawaysana allaha soo hadeeyo inta nabadda wax u dhimaysa ee nabaddu la qalqalloocan tahay ee dadku inuu isu yimaada ay la adag tahay ilaahayow soo hadee waxaan leeyahay wuu muuqdaa halkaa aan taagnahay coodanle magaaladiisii baa muuqata cadaynaynaa caalamka waxaan u caddaynaynaa soomaali waxaan u caddaynaynaa beesha dhulbahante waxaan u caddaynaynaa beesha habar jeclo gaar ahaan in la heshiiyey oo la heshiin doono oo la xisaabtami doono oo colaad dambe iyo dagaal dambe ayan jirin wax faa'iido uu leeyahayna ayan jirin waa la isla gartay waana loo dhan yahay
ilaahay ha inoo aqbalo intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijkii gaarka aynu ku eeganay heshiiskii shalayto dhex maray labada beelood ee kasoo kala jeeda bariga burco iyo beesha degta buuhoodle heshiiskaas oo ka dhacay balliga aadanwaal oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga degmada xararanka ee buuhoodle barnaamijkan waxaa sii kusoo damaraday anigoo ah cali cismaan yusuf cali dhagtar dhinaca kaamarada waa aniga iyo weliba dhiinta kaba intaynu barnaamij noocan kulmi doono waxaan dhammaantiin kaga tegayaa sidaas nabadgelyo